barnaamijka dabagalka degmooyinka waxaan isbuucan ku dul istaagi doonaa degmada Cabdicasiis oo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir kuwooda dhaca xeebta. Degmada Cabdicasiis waxay ka mid tahay degmooyinkii ugu horeeyay ee gobolka Banaadir, waxayna qayb ahaan ku taalaa 4 qaybood ee gobolka Banaadir. qaybtiisa bari waxa ay xuduud la leedahay 3 degmo oo kala ah Shangaani, Shibis iyo Kaaraan. degmada Cabdicasiis waxay ka kooban tahay 4 waaxood oo kala ah Gaarisa, Looyacde, General Nero iyo Dhagaxbuur. goobaha caanka ah ee degmada Cabdicasiis ee aadka loo garoon yahay waxaa ka mid ah xeebta Lido, Hotelka Global, garoonka kubadda cagta Engineer Risow, Ex-Conis, Hotel Royal Palace oo loo aqoon jiray City Palace, garoonka kubadda cagta Ex-Lugino oo hadda loo bixiyay Wish Stadium, Kawambari, xerada ciidamada badda ee Minerayo, isbitaalka Umma, maqaaxida Guryasamo, xerada gaadiidka booliska, safaaradda Djibouti, masjidka Cabdicasiis, wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda, dekadii hore ee Duqda iyo safaaradda Turkiga. degmada Cabdicasiis waxay caan ku tahay xeebta Lido oo ah goob loo tago nasiinada iyo in waqtiga lagu soo qaato. waxaa ku yaala hoteelo ay dadku ku caweeyaan xilli kasta. waa degmo dadkeedu isku dhaf yihiin oo aan dhib badnayn, aadna u jecel nabadda iyo dowladnimada. Cabdicasiis waxay ka mid tahay degmooyinka ay degan yihiin madaxda ugu badan. waxaa ku yaala xarumo dowladeed iyo safaarado. degmadan oo ah mid qadiimi ah ayaa waxaa ku yaala dekadii hore ee Duqda oo la isticmaali jiray ka hor inta aan la samayn dekada Muqdisho ee hadda la isticmaalo. waxa ay sidoo kale caan ku tahay masjidka Cabdicasiis oo la dhisay qarnigii 12aad sanadkii 1238, wuxuuna dhisan yahay 782 sano. wuxuu kow ka yahay dhismooyinka qadiimiga ah ee Soomaaliya caanka ku tahay. degmada waxay leedahay 4 MCH oo shaqeeya dhammaantood, waxayna bulshada ku dhaqan degmada loogu qabtaa adeegyada caafimaad oo ay u baahdaan sida dabagalka uu soo ogaaday. gudoomiyaha degmada Cabdicasiis waa Mahdi Faarax Cabdulle, wuxuu ka yimid qurbaha. waxaa degmada keensaday agaasimaha hay'adda NISA Fahad Yaasiin. Mahdi ayaa 5 January ee sanadka loo magacaabay xilka gudoomiyaha degmada Cabdicasiis kadib geeridii ku timid Allah u naxariisto gudoomiyihii hore ee degmada Sabax Cabdullaahi Asad oo ka mid ahayd mas'uuliyiintii ku dhintay qaraxii ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Xamar sanad ka hor. Mahdi oo markii dad ugu wardambeysay deganaa degmada Warta Nabadda, gaar ahaan dhabarka dambe ee tiyaatarka qaranka, ayaa lacagtii kirada kala soo gooyay gurigii uu deganaa. waxaana baadigoob ugu jira wakiilka guriga oo lagu magacaabo Sheekh Maxamed. guriga oo aan sida aan xogta ku helnay ay leeyihiin reer Sheekh Suufi ayuu gudoomiye Mahdi kala gooyay lacag dhan $358, wuxuuna u soo diray markii ugu dambeysay ee uu telefoon ka qabto Sheekh Maxamed lacag $8 ah, taas oo ka dhigan in lagu leeyahay $350. waa gudoomiyaha kaliya aan la garanayn meel uu degan yahay. shaqada degmada wuxuu yimaadaa marka uu doono, wuxuuna degmada inta badan shaqada tagaa marka ay jirto arrimo dhul ama dhismo si uu lacag uga helo. waxayna dadka degmada inoo sheegeen in aysan bagaranin wejigiisa oo uu iska qariyo. sidoo kale waxaa barnaamijka dabagalka la soo xiriiray askar sida ay sheegeen ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo ku leh lacag, waxayna qayb ka ahaayeen sugidda amniga degmada. wuxuu ka ruqseeyay shaqadii ay degmada u hayeen, wuxuuna ku dhageystaa telefoonka oo kama qabto si aysan lacagahooda u weydiisan. waxaan ka cabahaynaa gudoomiyaha degmada Cabdicasiis anagoo ciidan oo degmada ilaaliyay ilaa in macnaha muddo ugu yaraan 10 sano degmadaas gacanta ku haynay, la soo shaqeeynay 5 gudoomiye 4 gudoomiye Cabdullaahi Fanaxaan oo uga taga Ismaam Xuddi Cali Cariif ku xigay, waa la soo shaqeynay. waxaa ku xigay Sharma Arkaladana ku xigay, Sabax Cabdullaahi ku xigta Allah u naxariiste. intaas oo gudoomiye anagoo la soo shaqeynay. gudoomiye Cali Mahdi hadii la keenay 3 bilood lacagtood oo 8 askariya ahayna 7 wiil iyo 1 gabar oo baaritaanka noo qaabilsaneeday. 8 waxaan marka ku leenahay cala askari oo 9 milyan ah. 3 bilood waxa waaye 3 bilood bishii 3 milyan waaye. Muxudiin Huruur Cali la yiraahdo naynastida ay tahay taatiko anaga gudoomiyaha degmada hadii oo adiga isku dhacanba awood amba empower ciidan waa taqaanaa hadii la sameeyo meesha dawladda ka jirto. marka waxaan ka codsanaynaa Banaadir inuu gudoomiyaha degmada Cabdicasiis
ciidankaas xuquuqdoodii sida oo macnaha ugu dhaqsiyaha badan ciidankaas xuquuqdooda oo nagu siiyo. Gurigii loogu talagalay in uu dago gudoomiyaha degmada wuxuu ka kireystay Maxamed Cabdullaahi oo ah sargaal haysta xarunta gaadiidka booliska. Sida aan xogta ku helnayna waxay ku heshiiyeen in uu ilaalo ku daro isagana uu dago gurigiisa kira aan sidaa u badnayn uu iska baxsho. Mahdi ayaa sidoo kale gatay cawska macmalka ah oo loogu talagalay in garoonka degmada la dhigo xilliyada ay xafladaha ka jiraan. Cawskan oo ah 3 xabo oo loogu talagalay in marka mid uu halaabo midka kale la isticmaalo ama lagu goglo ayuu gudoomiyaha ka iibsaday shakhsiyaad garoomo ka furtay qaybo ka mid ah degmada. Qurba joogan waqtigiisa ugu badan ku qaato hoteelada ku teedsan xeebta Liido. Dadka degmaduna sheegeen in ay laayihiin ayaa aaminsan in xilka uu hayo Fahad Yaasiin oo dadka qaar ay ugu yeeraan milkiilaha dowladda Farmaajo cid ka qaadi kartana aysan jirin. Gudoomiye ku-xigeenka amniga waa Cabdifataax Xasan Macalin waxaa dhalay xildhibaan Xasan Macalin oo ka mid ahaa baarlamaankii dowladdii Shariif Sheekh Axmed. Ma jirto shaqo dowladda hoose oo hore u soo qabtay wuxuuna degan yahay degmada Kaaraan. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada waa Cabdi Macalin Aadan oo loo garan og yahay Cabdulugooyo. Shaqo dowlad hoose oo uu soo qabtay ma jirto wuxuuna degan yahay degmada Cabdicasiis. Laamiyada degmada ayaa u kala qaybsan kuwa burbursan iyo kuwa u xiran xarumo dowladeed, hoteelo iyo xeebta Liido. Dadka shacabka ee degmada ayaana dhibaato badan ku qaba isticmaalka jidadkaas. 2 waax oo ka mid ah degmada oo kala ah waaxda Lowya Cadde iyo waaxda Gaarisa ma shaqeeyaan. Xarunta waaxda Lowya Cadde waxaa xiray biyo ay dhigeen roobabkii ka da'ay magaalada Muqdisho waxaana ka jirto nadaafad darro. Waxaa xiran dhammaan wadooyinkii aadayay buurka degmada sida wadada Walaalaha iyo midda ka leexato Beeko. Waxaa jiray biyaha roobabka ma jirto cid isku hawshay in ay jidadkaasi furaan oo ay biyaha ka qaadaan. Nadaafadda degmada ayaa ah mid liidato. Xaafadaha qaar ee degmada waxay noqdeen qashin qub. Ma jirto cid xil iska saartay nadiifinta wadooyinka degmada. Gudoomiye Mahdi ayaa lacag gaaraysa $2,000 oo baad ah weydiistay shirkadda nadaafadda degmada oo sida aan xogta ku helnay magaceedu uu ahaa Udgoon. Shirkadda oo bixin weysa lacagtaas si ay uga sii shaqeyso nadaafadda degmada ayaa keentay in uu raacdeeyo. Waa kan milkiilaha shirkadda Udgoon oo sharaxaya sida ay wax u dhaceen. Gudoomiyaha Mahdi Faarax halkii bulshada ay ka sugaleen in wax qabad la taaban karo bulshada maadaama cusub yahay ma yahayn inuu maanta shirkadda nadaafadda Udgoon ee dhanka bilicda degmada kaga shaqeynayso bulshada iyadoo lagu jiro xilli roobeed wadankana xaalada emergency isaga jiro dadkana ay aad u wada baqayaan nadaafadan ay aad loo ugu baahan yahay in la dardargeliyo meeshan taageero ka sugaleen ayuu gudoomiyuhu wuxuu sameeyay sartaag oo awood nagu saarayo dhanka shirkadda maamulka iyadoo codsanaya in shirkaddu iyo haday shaqada rabto inay sii shaqeyso ay u baahan tahay in gudoomiyuhu afgarasho fiican u helo laakiin kama sugeen in nadaafadda maanta oo gudoomiyaha yiraahdo afgarasho xoog leh u baahan tahay haddaan afgarasho bixinaynin shirkado kala badan oo ila soo xiriir ayaa jiro oo afgarasho bixinaya marka waa mid aad looga niyajabo. Xarunta degmada kama socdaan wax shaqo ah. Gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa ayaa tago marka ay doonaan. Dadka degmada ee adeega u doonta xarunta degmada ayaa sheegay in ay iska soo laabtaan marka ay saacado fadhiyaan oo wax u shaqeeya ay waayaan. Waxaa suuqyada degmada lagu arkaa kaliya askar si xoog ah canshuur uga qaada ganacsatada. Qaarkood goobaha ay canshuur u hortaagan yihiin waxaa albaabkooda yaallo dhiiqo oo waabiyo degeen taas oo ku muujinayso in canshuurta laga qaado wax bedel ah aan loogu qaban. Waxaa dansan inta badan leerarka cadceedda ku shaqeeya ee ku xiran jidadka degmada. Ma jirto cid isku hawshay dayactirkooda. Waxaa mugdi ah xilliyada habeenkii wadooyinka degmada marka laga reebo wadada dhinac marto xeebta Liido ee magaalada Muqdisho. Gudoomiye Mahdi oo ay aragti kala dhaxayso dhulalka la isku haysto iyo kuwa la kala iibsanayo ayaa bilaabay in jidadka degmada qaar uu dadka ka gado si ay u dhistaan taas oo sababtay in xaafadaha qaar degmada ay noqdaan kuwo isku raran ah oo wadooyin loo maro aynan jirin. Taliyaha saldhigga booliiska degmada Cabdicasiis waa Dhamme Axmed Cabdullaahi Baashane oo loo garan og yahay Calooli. waxaa 19 bishan shaqo joojin ku sameeyay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya sida warbaahinta dawladdu ay daabacday.
wuxuuna booliska Soomaaliya ku soo biiray sanadkii 2009 xilligii dowladii Shariif Sheekh Axmed. Wuxuu ahaa taliyaha amniga iyo afhayeenka ciidamadii Ex Control Afgooye oo ahayd goob laga hubiyo gaadiidka. tababaro isxigxigay oo ku soo qaatay iskuulka tababarka ciidanka booliiska ee General Kahiye iyo dalka aan walaalaha nahay ee Djibouti. Kadib wuxuu kabtan baashana noqday taliye ku-xigeenka booliiska saldhigga degmada Waaberi ahna madaxa dambi baarista ee degmadaas. wuxuu ku sima taliye iyo taliye ku-xigeen booliis ka soo noqday degmada Warta Nabadda. wuxuu sidoo kale soo noqday taliyaha booliiska degmada Wadajir. taliye Cabdullaahi Baashane waxa uu mar ahaa taliyaha ciidanka ilaalada xarunta maamulka dowladda hoose ee Xamar, waxaana loo magacaabay taliyaha booliiska degmada Cabdicasiis tiro 2 jeer ah. wuxuuna degan yahay degmada Cabdicasiis, degmada oo inteeda badan u xiran hoteelo, goobo dalxiis iyo guryo ay degan yihiin mas'uuliyiin dowladeed, ayuu amnigeeda yahay mid aan wanaagsaneyn inta isku furan. Cabdicasiis oo amnigeeda kaliya ka sugnaa inta biraha ku xiran yihiin ayaa 16 bishan waxaa ka dhacay weerar ku bilowday qarax lala eegtay hoteelka Elite oo ku yaala xeebta Liido. su'aasha ugu badan oo ay isweydiinayaan shacabka Muqdisho ayaa halka ay mareen gaariga qaraxa loo adeegsaday iyo raggii weerarka ku qaaday hoteelka, iyada oo la wada og yahay in aagga Liido ay ka xiran tahay dhinac walbo. gaari aan la garanayn ama la baarinna uusan u gudbi karin gudaha, bajaajna warkeeda badaa. askarta ilaaliso baraha kontarool ee laga galo xeebta Liido ee kala ah kontaroolka jidka hormara saldhigga booliiska degmada, kontaroolka suuqa degmada ama jidka Muqdisho Gasti, iyo kontaroolka minaraayada ayaa ah kuwo aad u adag, waxaana dhibaato ka mara galidooda qof kasta. waana tan qof walba qaadan la yahay in gaari qarax iyo ciidan hubeysan ay gudaha u galaan. waxaa degmada ka dhaco falal isugu jira dhac iyo dagaalo dhexmara ciidamo militari ah oo qayb ka ah ciidamada degan degmada. amni darrada ugu weyn ee degmada ka jirto ayaa ah waaxda General Nero, sida ay dabagalka la wadaageen dadka deegaanka, waxaana shacabka looga qaataa telefoonada gacanta iyo wixii la mid ah. xogo hoose oo uu helay barnaamijka dabagalka ayaa xaqiijinaya in degmada Cabdicasiis ay tahay degmada kaliya ee degmooyinka gobolka Banaadir uusan saldhiggooda booliiska lahayn gaari ciidan ama cabdibile. fal kasta oo amni darro ah ee ka dhaca degmada waxay ciidanku goobta gaaraan xilli lagu kala tagay. waxay si bilaash ay baryo ah u soo raacaan mootobajaaj marka ay shaqada ilaalada kontaroolada soo galayaan ama ay ka baxayaan. saldhigga booliiska ma lahan gaari ay ciidamada howlgallada iyo roondooyinka ay ku sameeyaan, taasi oo qayb ka ah in ciidamadu ay fulin waayaan dhammaan adeegyadii amniga ee loogu talagalay inay ka qabtaan degmada. mas-uuliyiinta degan degmada jidadkeedana sidaas u xiran yihiin, gaari lagu sugo amnigeedana aan lahayn. waxaa ka mid ah taliyaha booliiska Soomaaliya General Cabdi Xasan Xijaar oo degan degmada, taliyaha ciidamada xoogga dalka Sareeyo Guuto Odawaa Yuusuf Raage, Senator Muuse Suudi Yalaxow, madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe, wasiirka gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed Amar Dambe iyo saraakiil kale oo fara badan. haddaba siduu askariga ku sugi karaa amniga hadduusan haysan gaari ciidan oo uu ku gaaro goob walba oo laga soo sheego amni darro? degmada Cabdicasiis ma lahan maamul u diyaarsan u adeegidda canshuur bixiyaha. waxaa ka socdo kaliya rabitaanka mas'uuliyiinta tirada badan ee degan. waxaa burbursan nadaafad darrana ka jirta jidadka furan oo ay degan yihiin dadka shacabka ah. xaruntii degmada kama socoto shaqo, waxaa biro iyo dhagaxaan lagu jaray inta badan jidadka degmada. waa degmada kaliya ee Muqdisho ee leh hal wado oo laga galo lagana baxo, waa jidka ka yimaado degmada Shangaani ee dhinac mara xarunta taraafikada. Maxamuud Ali Xaaji, barnaamijka dabagalka degmooyinka.